ملهمي يشدو. السلام عليكم يا أصحابتي قالق بدن وولاشين سمية محمد وإلهي درتيني جعل isku soo noqod wanaagsan alxamdulilah wiiga hore waxaan ka wada hadlay waxay tahay maskax xanuunka ama madax xanuunka alxamdulilah ilaahay wuu nagu guuleeyey dad badan ayaa isoo waceen oo idhan sumayo waan qaadanay fikradaada maay asxaabteyda qaaliga badan maanta maxaan ka wada hadlaynaa waxay tahay horta ilaahay dartiis ayaan nii jeclahay inankana waan filayaa dad badan ayaa isoo waceen maay asxaabteyda qaaliga badan oo i weydiiyey sumayo maxaa u fiican gaaska wiilal badana isoo wacay maasha allah maanta waxaanii wadaa waxay tahay waxyaalo badan oo gaaska u fiican adoo daawo chemical ah isticmaalin alxamdulilah maasha allah daawooyinka chemical wax badan dhibaatooyin badan ay keenaana la dhahay alxamdulilah dhirteena ilaahay isku noogu talagalay inaan isku caafino alxamdulilah ilaahay caafimaad ha noogu daro inta xanuunsan ilaahay xanuunka ha ka dulqaado inta caafimaad haysto anigu waa alxamdulilah ilaahay noo ziyaadiyo intaas inka badanna ilaahan ka rajeynayna insha allah biidnillaahi baari maay asxaabteyda qaaliga badan ka faa'iideysi wanaagsan wiil walaalkee ayaa isoo wacay oo i weydiiyey sumayo maxaa gaaska uu isticmaalaa daktar badanaa u tagay gaaskii wuu igu sii kacayaa huraan dareemaa habeenkii ma jiifto caga huraan dareemaa gaas dartiis marka walaasheey maxaa nugu caawin kartaa ilaaha wax caawiyo laakiin aniga dadaalkii baan leeyahay maay asxaabteyda qaaliga badan isku soo noqod wanaagsan waxaa maanta nii haayaa isdhihi katiin walaashiin sumayo waa kaas bahal xawaajiga u eg aanse ahayn xawaaji asxaabta qaaliga badan yaa la dhihin sumayo anaka maanta xawaajiga noo keenta miyaa maya qofkii yaqaanaa yaqaano xawaaji ma aha bahalkan kaamuun ayaa la dhahaa afkeena soomaali kaamuuna la dhahaa wuxuu ka baxaa etoobiya wuxuu ka baxaa indiya soomaali laakiin kama baxo sida lii sheegay vanal seedna af english ahaana loo dhahaa maay asxaabteyda qaaliga badan af english ahaan vanal seed aa la dhahaa meesha qoraalkan kusoo qorayaa af soomaalina kaamuuna la dhahaa maay asxaabteyda qaaliga badan bahalkan wuxuu u eg yahay haddii si loo sii fiiriyo xawaajiga laakiin maya isku mid ma aha isku sanji hataa ma aha si faxa loo fiiriyo maay asxaabteyda qaaliga badan inta gaaska haysato ha ka faa'iideystaan maanta faa'iidadaas wanaagsan ama daawadaas wanaagsan oo dhirteena ah oo ilaahayna siiyey alxamdulilah dhulkuu doona ha ka baxo kule ilaahay unbaana siiyey alxamdulilah inkastoo soomaali uuna ka bixin wuxuu ka baxaa etoobiya wuxuu ka baxaa indiya maasha allah alxamdulilah ardada dhamaa ilaahay ayaa mas-uulka ayaa ilaahay asaga ayaa iska leh anakana waa ka faa'iideysanayna wuxuuna siiyey ama wuxuu nagu risaaqay alxamdulilah maasha allah maay asxaabteyda qaaliga badan haddii aad ka cawanaysa gaas ama gaas dartiisa cagaha kuu huraayaan ama gaas dartiisa dhabarka wax kaaga ama oodinkaagis istaagaysa ama gaas dartiis aa u dareemaysid hurdo la-aan ama daac xun ama ha ahaato maxaa la dhihi jiray aariya dhinac damba kaaga imaanaysa ha ahaato ama ha ahaato daacsi badan noocee rabtaa ha ahaato haddii aad ka cawanaysa gaaska maaya asxaabteyda qaaliga badan haddii egfashan aad ka cabanaysid caloosha ama anta bakteeri nooca loo yaqaana ama aad ka cabanaysid isku dadaal ama ku dadaal inaa isticmaashid ama inaa isku dadaashid aad ay u fiican tahay ku dadaal bahalkaas kaamuun ayaa la dhahaa waa laga helaa dadka nairobi joogo dadka soomaali joogo ma aqaano laakiin nairobi anaka waa ka helnaa alxamdulilah maasha allah indiyana dee waaba ka baxaybo dhulkaas kale laakiin ma aqaani maaya asxaabteyda qaaliga badan bahalkan aad ayaa loo xayiiseeyey aad u fiican yahay waxtar u yahay aniga kula hadlaayo maama ayaan siiyey oo ku fiicnaatay alxamdulilah maasha allah wax la hubo lela qaataa waxaan la hubinin lama qaadanayo aniga waxa aan soo fiiriyey ama aan soo hubsaday unbaan ii sheegaya maaya asxaabteyda qaaliga badan dadka nairobi joogaan ha isku dayaan bahalkaas inay isticmaalaan dadka gaaska nafta u keenay ayaan ka hadlayaa maaya asxaabteyda qaaliga badan isticmaalkiisa ayaan hore u galaynaa sida loo isticmaalo ama sida loo isticmaalo ama sida macnaha
markii aa cabaysid camal qaabka u isticmaalaysid camal maasha allah. bahalkan 2 galaasoo biyo ah ayaa digsi ku shubaysaa maaya asxaabteyda qaaliga badan. subaxda alisayda adoo afkaada qabtid ayaa isticmaalaysaa 2daas galaas oo biyo ah ayaa dabka ku shubanaysaa. bahalkan hadaarabtid waa shiidanee, hadaarabtid sidiisa u isticmaalee, hadaarabtid waa tumanee adileewa wax dhibaato u kuu keenay malaha. haddaa sidiis u isticmaalatid hadaa dhib malaha, haddaa shiidatid oo mashiinta aa shubatid dhib malaha, haddii aa tumatidna waa kasii fiicanba maasha allah. in la tumaa ka fiican because mashiinta waxaa ka fiican inka sheegi in la tumo ani laakiin waaba tuntaa maasha allah. shaah hataa wallahi waa ku darsada alxamdulillah, wax badana iskiga faa'iiday alxamdulillah maasha allah. maamada sabrarteen aad iskiga dareenta caafimaadkiisa way ka faa'iiday maasha allah, ilaahay u siyaadiyo. 2 galaas oo biyo ah ayaa isticmaalaysaa. 2da galaas oo biyo ah iyo 2 qaado oo kan asoo kuu tuman ama asoo kuu shiidan ama asoo sidiisa dhib malaha ayaa ku darsanaysaa. markaa ku darsatid way karkarayaan. markay karkaraan qaaciisa hataa ma la rabo inuu baxo. si fiican markay u karkaraan dhulkaa dhigay, asoo kuleel ma la rabo inaa cabdid. dhulkaa dhigay markay xoogaa yar qaboobaan qandac xigeen ah, qabow zaa'idna ma hayaa, qandac xigeen ah shaandhada soo qaadanaysaa. koobkan ayaa ku meerinay. subaxda alisayda adoo afkaada qabtid 1 koob ayaa isticmaalaysaa. haddaa diidaysa inaad subax kasta karisid waa badsanay. haddaa rabtid haddaa badsatid ama 4 koob camal oo isku karkarsatid meeritid caag aa ku shubatid ama meesha waxa haysatid ama baaquli waxa haysatid markaa isdhiga kadib waa ku shuban kartaa. intaa ku shubatid frinjeerka gashanaysaa. markasta aad soo baxsatid waa yara kuleysanaysaa. koobkaas ayaa ka cabi. wax kasta adoo afkaada qabtid koobkaas cabi. haddii anta bakteeriya caloosha kaa haysi ama bakteeriya ay caloosha kaa haysi waa isdhaafteen, laakiin waa inaad talada ilaahay saarataa. haddii infection caloosha kaa haysi oo infection maalin kasta iska daaweynaysi waa isdhaafteen, laakiin waa marka ilaahay u tala saarataa inaad ku caafimaadaysid. haddii gaas ku hurinayay ama macnaha lagu hurku haayay gaas dartiis ama dulshii ku xanuunaysa ama oodankaaga taagneed gaas dartiis, laabjeex maxaa la dhihi jira aariyo badan oo kaa baxaysa xagga gadaal, intaas kule haddaa isku arki jirtay way kaa baxaysaa. laakiin waa markaa ilaahay talada saartaa. maaya asxaabteeda qaaliga badan ha lagu dadaalo geedkaas insha allah. intaas inka badanna waa rajaynayaa inaan ii keeno insha allah. ilaahay hanagu wada caafiyo biidin ilaahi baari. waa walaashiina Sumaya Maxamed Khaliif oo ilaahay dartii nii jecel. dadka walaalaheena cusub oo nagu cusub waxaan leenahay waxaan ka codsanaynaa subscribe-ta, leegta, sheerta, gambaleelka furo sifa u aragtid waxyaalaha badan walaasha ay kuu soo wado. dadka hore noola jooga walaalaheena khayrka badan waxaan leenahay leegta iyo sheerta ha ka ilmaamin, usii shaalgaree asxaabtaada qaaliga badan. waxaa laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan. maaya asxaabteeda qaaliga badan isku soo noqod wanaagsan insha allah. niima hilmaamin. inkana waxaan rajeynayaa inaad support siisaan biidin ilaahi baari. gacantiinaha naga dhawiilina leega xagiisa. kumadiga naftigeeda muhiim uu yahay, lasoo hadalka naftigiisa muhiim uu yahay. maaya asxaabteeda qaaliga badan geedkana waa kaas. ha u maleynin inuu xawaaji yahay, ma aha xawaaji. waa kaas sida xawaajiga oo kale waay, laakiin xawaaji ma aha, kaamuun ayaa la dhahaa. isku soo dhawaada, soo noqod wanaagsan. maaya asxaabteeda qaaliga badan inta xanuunsan ilaahay xanuunka ha ka dulqaado, inta caafimaad haysato ani aan ku wahayn ilaahay hanoo ziyaadiyo maasha allah. alxamdulilah, ilaahay ayaa mahad leh. ilaahay markaa ku shukrisid ayuu ku ziyaadinayaa insha allah biidin ilaahi baari. wax khayr badan ayaan ii rajeynayaa, caafimaad khayr badan ayaan ii rajeynayaa insha allah biidin ilaahi kariim. waa wada soconeynaa, waa wada xiriireynaa biidin ilaahi baari. isku soo noqod wanaagsan. assalaamu calaykum maay asxaabteeda qaaliga badan oo ilaahay dartii aan u jeclahay.